السلام عليكم أصحابتي جنركي كحرن أصحابتي إذا زيتهين سومن فعلدين أصحابتي وهذه السلامة يا welcome back to my channel محلها أي سو نقشة وعان محلها ويك كاليتو إلى نسكوك يسوع عليه الحمد لله الشكر له وهذه السلامة يا سلام قالي هود إذا سو مرينيا هذا نقول سبتها فضلا سبسكرايب ونصار صفة معلك استوى سو بوست قري إن شاء الله هيركاس الله هيكارسيا أنقارو إن شاء الله the weekly updates ayaan sameeyaa marka insha Allah in the future hada maxalaha kor ay qaadaan insha Allah every day waxyaalaha dhacay daba geeni doona waa idin salaam ya salaam qaali hawada idin soo marinaya kulligiinaba asxaabta maxalaha ay Soomaaliya taanahay waxa ka sheekeynay waxa aragnimo weeyno ma fahanteen every day waxyaalo cusub baa aragnaa wax iga yaabiya today arkay gawar sanad kasto new story laga soo saara maanta rabaa inaan ka sheekeeyo anigoo youtuber ahaan anigoo youtuber ahna iga yaabisay I don't know what honestly every day God asks hadaladeeda every year and hadaladeeda waa soo gaaraan today waan dulmareynaa insha Allah couple videos no idin haya clips akhirsan doona insha Allah xalaha gabadha ku saabsan gabadhan waxa ka hadlayaan gabar kale ma aha waa Xafsa Queen walaashin Xafsa Queen waaye horta first waxaan ilaha haduu qofka min aadanka nafsadiisa social media soo galiyo oo asaga isoo saara social media waa qasab in laga hadlo qof kastana ka hadlo ma fahanti marka maadaama aniga aan ka hadlayo hadii gabadhan ay aragto video walaashi miyas iga xumaana because ayada first of all social media isoo saartay as always we're going to be fair maxalaha laakiin arinta weekend ku dhaqantay aan ka arkay social media aad baa ugu xumaaday mainly because area ay dhahdayna waa idin tusayaa clips kalena waan fiirsanayna insha Allah kadib marka waxa dhan fiirsano maxkamadda gadaal waxa fariin ugu fareyna ama judgment ha ahaato ama adiga wax alaal waxay ahaataba gadaal aan ka dhigi doona waxa dhigi doona aniga ra'yigayga as always let's watch the first video aniga iga xanaajiyay oo dareenkayga soo kiciyay as Somali Barbie ahaan arba ina idin tuso aygeeyay iyo maxaan dhahaa inaan milyan gaaro batriyada waxa waa ilmo qurxoon na dhalan okay at least aan waarona sandheer waa dhayso ni waa leey afwaale wax falxan hadii oo maxaa lahaa ali ala kulli xaal ilmo Soomaaliyeed ina dhalan fahamto before aan ra'yigay ka bixsanin gabadhan walaashii waxba aan dhihin another video ku tusaya iyadoo live saaran wiilkan hadda dhehayso marabo ina wax dhalo ama ilmo qurux badan aan rabaa inaan dhalo dhehayso iyadoo jecel u sheeganaysa idin tusaa it's kind of the whole thing is weird you guys aniga waxa dhan waa fahmi waan Xafsa abdaxfid mujeceshahay yes illa intee jeceshahay xafid jeceshahay gabadhan indee maxaa ka muuqdo qalbiga kama wada abta kala qaybsanaya su'aal markaa weydiiyay su'aal kala weydiinay okay Xafso adeeg ku maraytaa marka haye Xafso jeceladii hore ku soo maray muxuu abdaxfid jecelkiis kaaga duwan yahay oo ka daacadsan yahay daacad maxaa kale خلاص daacad waa qofka wax lagu doortay so asxaabta gabadhan aweyka gowdheysay wiilkan waan jeclahay isagan dhahay indhiga ka jeclahay wiilka xataa heer wuxuu gaaray uu dhaho football teamka waan ka baxayaa waa guursan rabaa jacayl baan helay uu soo qoray xataa wiil carab waxaan arkaya ka bixinayo reaction dhahay bro ha ka hareen footballka ciyaarayay wiilkan wiil footballer wahaa magaciisa waxa la Cabdi Xaafid allaha think TikTok is waxa la Xaafid Leo so apparently labadan qof waxa lahay asiga wuxuu haystay
sheekadana aniga bilaaba sheekadu waxay ka bilaabatay asaga oo haysto 500,000 oo ruux iyo gabadhan oo ayada milyan wax ugu dhimay 800,000 oo followers haysto ayaa kulmay ayada soo sheegayso waxay bilaabeen inay videoyo soo duduwaan like dadka way ka heleen Soomaali jecel bay jeclaadeen sanadkan dad badan ku qaraabto aan ognahay aan soo aragnay inay yihiin lamaano sifad badan ay ugu xirmaan I'm really happy about that Soomaali inay lamaanaha jeclaadeen oo Soomaali kala geen jireen hal jirid isku diraan jira hadda waxa socoto lamaannimada in lagu qaraabto ma fahanti laba marka gabadhan soo sheegaysa xidhada lamaannimada jiri jirnay waxa rabay inaan TikTok ku kala kacsado 1 million followers inaan helo uu kaambo sa u dheed kareenay inaan million followers aan helo dartiisa marka milyanka gaarayna xiriirkii sida u jaray marka wiilka asagoo waxa wareesanay jabra asagana waa la wareesanaya wuxuu ka wiil degan wareesigiis waa idin daaray wax yar ka fiirsanayna the way I see it wiilka wiil degan ka insha Allah let's watch wareesiga la wareesanayo ilmo qurux badan ina dhala oo baahna ilmo faafaal xun oo jareer weyn ina dhala marabay tiri hadalkaas hal ilmo wallahi waxa qaar intina ka sheegay maro أرتي قفل بسي واحد فسيرة واحد كل تجنا إيقابك أو حوا ما واحد كل تجتمان عيدا وحتري المفعل فال حين على مرة وحارة يتري المقروح بين السما وين على معك دليل مرك هذا الكاس وعوا هذا الكاس وحلو كان ما حوا قرال أنا أنظر إذا وحوا أو كحنا جيوا هاي معاقر زي ولا أنت ناقش شيء مرة حوا حيوقار أبو محاقرت أبو مانوشيك أبو محاقرت أنا مانوشيك أبو لا يرد على محل إلها قفة واحد دوسان وقاعدة هنا محلها وحن الدوسان ريل إنه يهي إنه فقيه and also محلها وكاس وما شاء الله رحمك الله قبل إذا كان استوى iska ogow ruuxa noloshaada rabtid inaad wax ku darsatid qofka repetitionkiisa gadaalna fiiriya always maxalaayay qofka ma aragtay actions speak louder than words in ahaan gaalada marka gabadhan she has a resume or a CV there in social media everybody knows aniga maxaanay wax ma dhahay god walaashi laakiin everybody at social media ku jiro they have a long CV we all know who they are aniga maanta marka qofkaas marka wax ku darsanay I have to know waxa iga imaan doona ma fahanti wiilkaas walaalkii waxa dhilaa Soomaali dhanaa ku jecel wiil qarni ciyaara tahay please maxalla shaqadaada iska deenin you're still young you have a long future ahead of you wa arkina dabay labadan qof ay yihiin hanad iyo xafso waxa laga yaabaa ilaahay maxallaha quraanku ku sheegay good woman is for good man and vice versa qofka xun qof xun u raacaya lahay so you never know ilaahay inuu ku badbaadinayo qof wanaagsan ku soo wada dhici karto markiina labadooda isku wanaagsan yihiin way dhici kartaa marka Allah knows best waxa waxa ku dhilaha wiilka walaalkii xafid qalbigaaga adkeyso oo Soomaaliya tahay no barika saaray Soomaalinimadana ma jirto qof qarankeena soo ciyaaray oo waxa tahay koob ku soo وكان أمد الصوماليات نواتحي إنه حد لها we love you walaalkeen macaan محلها كبحين فوتبول كاي وظهر إنك قارتid إن شاء الله قارسي international أو عيارتid قبضة نيتي حد لها good luck بعد حد لها بعد مراتيس الله يفسو اسكوب سنو نسقو دور جلوا أرجنا ويل كان هذا ويل كل كراعي إنا محلها اسكوب معدين هذا أنا كلا عرتين أصوش social media كلا على حتى وأرجنا مركو حد لها make sure this is the right one sister الله سأقول لها make sure إنه ويل كان وكحمين دون دم بأسجن إن شاء الله وهذه سلامة كلنا هلا ساربين عندها رجعنا هذا فيديو ذيك هالشيء بليز subscribe like and share وكاس هلا سعيد دافيا السلام عليكم.